السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad naga daawanaysaan. Mareykanka iyo qaar ka mid ah dawladaha Islaamka oo aad uga carooday fal ay Israa'iil ku kacday. Netanyahu oo laftirkiisa sheegay in lagu shirqoolayay falka oo mucaaradkiisu ay ka dambeeyeen. Haddaba sidee wax u jiraan tafaasiil ku saabsan wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray aynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. markab la sheegay inuu u socday Xuutiyiinta oo meel dhexe lagala wareegay kaasoo la sheegay inuu hub u siday kana yimid Iiraan tolow yaa la wareegay ayana warbixin baan idinkaga hayaa. waxaa sidoo kale qaybaha dambe ee barnaamijkeena aynu ku soo qaadan doonaa madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky oo si la yaab leh uga jawaabay qorshaha Trump ee ku doonayo dhulka Ukraine qaybo ka mid ah inuu kula gorgortamo oo ku wareejiyo Putin. haddaba wararkaas ayaynu galabta barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa inta aan ku jirno wixii warar ay soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. war murtiyeed ayaa goordhow waxaa soo wada saaray dowladaha carabta iyo kuwa islaamka. war murtiyeedkaas waxaa lagu diiday go-aankii baarlamanka Israa'iil uu shalay ku gaaray in ay Israa'iil doonayso inay qabsato oo ay la wareegto daanta galbeed dhulka Falastiin. Gaza laga celcelinayay daanta galbeed iyo waxaan oo dhan waaba sharciyeysanayna taagay. waxay sheegeen inay arrinka aad iyo aad u cambaaraynayaan. haddaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay warkan saxaafadeed ay soo saareen dowladaha carabta iyo islaamka. waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan qaraarka maxkamadda caalamiga ah kaasoo ay ku sheegtay Israa'iil inaanay waxba ka bedeli karin dhulka Falastiiniyiinta ay haysato. haddaba waxay sheegeen inay cambaaraynayaan dowladaha carabta iyo kuwa islaamka go-aankii baarlamanka kiniisadka Israa'iil uu ku meelmariyay qaanuunka markaa lagu qabsanayo qarannimada dhulka daanta galbeed loogu soo wareejinayo Israa'iil oo ay markaa Israa'iil ay yeelanayso. waxay sheegeen inay arrintaa ka digayaan siyaasadda Israa'iil ee markaa arrintaa ku wajahan. waxayna ugu baaqeen mujtamaca caalamka inay markaa arrintaa wax ka yiraahdaan oo ay la hadlaan Israa'iil. dowladihii carabta iyo kuwa islaamka ayaa war soo saaray. qodobadooda waxaa ugu muhiimsanaa 3 qodob. midda koowaad maxkamadda caalamiga ah oo sheegtay inaysan dhulka Falastiin Israa'iil qaadan karin. waa soo dhaweynaynaa waxaan cambaaraynaynaa. sidoo kale yiraahdeen baarlamaanka wuxuu gaaray go-aan ah in Israa'iil ay siyaadadeeda ama qarannimadeeda ku darsan karto oo ay qaadanayso daanta galbeed. taas oo cambaaraynaynaa. adduunkana waxaan ugu baaqaynaa arrinka inuu wax ka qabto qoraalay maraysaa. haddaa maqasho dowladaha carabta iyo islaamku arrinkaa waxay ka sheegeen way cambaareeyeen qoraalay soo saareen. intaas waa iyaga tabar kale mahayaan. marka arrinkaa marka wuxuu noqday arrin aad looga carooday. dowladihii caalamka oo dhan baa carooday. xataa maraykankii waa waanta ku jiray madaxweyne ku-xigeenkiisii hadlay, wasiirka arrimaha dibadda hadlay, Trump hadlay, hal maray wada qayliyeen. waxay yiraahdeen waxa Israa'iil ay ku dhaqmayso waxay caqabad ku tahay heshiiska aan wadin. hadda Gaza laga heshiinaya markaas daanta galbeed aan qaadanaynaa baarlamaanka ku codaynaa maxay sheekadaas iyadana bug ay tiri wixii oo dhan isla qayliyeen. Netanyahu laftirkiisa iyo xafiiskiisa ayaa iyaguna qaylada ku biiray. maxay rabaan iyaguna waxay leeyihiin mucaaradka oo ka faa'iideysanaya xaaladan ayaa baarlamaanka ka codeeyay. waa qaadanaynaa daanta galbeed ee dhexeen iyagoo annaga nagu xumaynaya rabaan inay iska kaana hor keenaan annaga iyo Mareykanka iyo wada hadalladan hadda socda in naloo arko dawlad waxay rabta qaadanay. warkaasu sax miya? falanqeeyayaashu waxay leeyihiin wax sax ma. Netanyahu iyo kooxdiisa iyagaa ka shaqaynaya hawshan. marka hadda markii baashu meel ay timid ayuu wuxuu leeyahay aniga ma aha mucaaradka ka dambeeya sheekadaas. aniga waxaan amar ku bixinayaa shuruucdaas in halkooda lagu hakiyo oo macnaha aan hore loo sii wadin. waxaa dhahay Netanyahu waa markii Mareykanku qeyliyeen adduunka oo dhan uu qeyliyay shee ku qaadaneen leedaanta galbeed macdaa iskale siyaadaan ku darsanaynaa qarannimo aan qaadanaynaa macnaha qarankeena ku daraynaa. hadda gumaysi camal ay u haystaan laakiin hadhow waaba qaramaysanayna ilay
sida Talaabiib iyo Casqalaan iyo dhulkan ay u qaateen saas oo kale u qarabaynayna dhulkaas ayaga malay Falastiin ahayd wuxuu dhan waa qaateen haddana daanta galbeed waa qaadanayna ilaa marka hawshaas halkaas ay maraysaa wararka kale ee galabta soo kordhay iyaguna muhiimka waxa kamid ah Bab al-Mandab waxa lagu qabtay markab Bab al-Mandab de waa ogtiin Yaman Djibouti waxa soo dhan darisay leeyihiin markab marka waxa la yiraahdo hubsida oo xuutiga u socda ayaa la qabtay hub noocyo kala duwan sawaariiq iyo gantaalo iyo alaabo kale hubka lagu sameeyay waxa saarnaa waxay leeyihiin qoladii qabatay wuxuu ka yimid Iran Bandar Abbas deked la dhahay halkaas uu ka soo baxay wuxuuna u socday xuutiga meel dhaxan isaga duubnay qolada marka qabsatay oo sheeganaysa inay shaqada qabatay yaa waaye waa dawladda Yaman waaye dawladdu adduunka aqoonsan ee cadan fadhisa ayaa waxay leedahay annaga markabka qabanay markabkana Yaman oo ka yimid hubkaas uu waday marka waxa leeyahay shalay ayay sheegtay dawladda Yaman inay markabka qabteen shalay ilaa xalay ilaa saakay ilaa hadeer wax war ah oo ka soo baxay Iran iyo xuutiga labadaba ma jiraan markabaana la ka qabtay iyo kan iyo marka saxaashiyaha ma la soo bandhigay videogi wixii ilaa hadda waxba lama soo bandhigin laakiin dawladdu way sheegaysaa Yaman waxay leedahay shaqadaas aan qabanay warbixin ku saabsan wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa waxay qoraysaa warbixin ku saabsan ciidamada Yaman ee dawladda Yaman inay sheegeen inay la wareegeen hub ay Iran leedahay oo saarnaa markab meel ku dhow Bab al-Mandab inay kula wareegeen haddaba xarunta warfaafinta ayaa waxay sheegaysaa Yaman in ay qabteen 8 qof oo la socotay markabkaas oo la sheegay inuu ka soo baxay dekada la yiraahdo Bandar Abbas ee Iran ku taala wuxuuna ku soo jeeday goobaha hoostaga xuutiyiinta dalka Yaman sida warbixinta lagu sheegay ma jiro wax faahfaahina oo ilaa hadda ay soo saareen Iran iyo xuutiga labadaba ma jiraan alaleey u fiirsado wax faahfaahina oo labada dhinac ka soo baxay ma jiraan laakiin dhankan Yaman waxay leeyihiin gantaala saarna alaab kala saarneed Yaman oo ka yimid wuxuu ka yimid Iran 8 shaqaalaha la socotaan qabanay waxaas leeyihiin marka waa arki doonaa wixii warara markabka arrimihiisa ka soo kordha dhanka kale Masar ayaa waxay wadaa dadaalo ay ku doonayso Falastiiniyiinta aaraadooda inay ku midayso si ay hadhow uga tashadaan aayahooda hadday tahay daanta galbeed iyo Gaza sidii dawlad loo dhisi lahaa qorshahaasna masaaridu waxay kala hadlaysaa Mareykanka oo ay leedahay shaqada nagu taageer inaan hawsha qabanayno oo Falastiiniyiinta hawshooda aan wadayno haddaba markaan idin soo jirada leeyahay ra'yul yawm waxay leedahay al-Qaahira ama Masar waxay marti gelinaysaa wada hadallo Falastiiniyiinta u dhaxeeya waana markii labaad waxaana laga hadli doonaa arinta ku saabsan marxaladda labaad heshiiska xabad joojinta Gaza kadib waxa dhici doona waxaana masaaridu ay wada hadallo la yeelatay arinka ku saabsan Washington si loo xaqiijiyo nabadgelyada iyo cadaaladda gobolka marka waxa leeyahay Falastiiniinta Soomaaliya marxaladda labaad heshiiska xabad joojinta iyo sidii ayhiina uga tashan lahaydeen waa muhiimada maartay Mareykankana waxay u sheegeen inay arinka muhiim tahay oo ay qayb ka tahay nabadgelyada iyo cadaaladda gobolka in markaa la helo qadar xayisiisa kadib waxaan galaynaa Ukraine iyo Mareykanka ninkii Zelensky ahaa iyo Trump waxa kala haysta ayanu war muhiim ah kaga haynaa ninkii Zelensky ahaa oo afka furtay qaylo taaka kamida dhulkeena ma ku bedelanayna nabadu wax kala waaye laakiin dhulkeena see ugu bedelanayna dhulkeena ma dad siinayna waana la xoogay sharci darra lagu haysan karaa maalinka xoogaysanana askar ka celinaa laakiin dhulkeena dad u saxiix mayno arrinka marka waxay ka hortagaysaa leeyahay qorshaha Trump ee ah qayb iska qaado Ukraine qayb kale waa kaas sheekaas
marka sheekadan waxaa ka dambeeya le Yurub oo iyaduna ku taageersan Ukraine go'aanka ay qaadatay Yurubiyanku waxay leeyihiin waa taageersanahay Trump shaqadu wado laakiin shaqadu hadday soo gasho dhul islaameed nabad ha lagu bedesho macquul ma laakiin nabad kale iyo sidii wax kale looga shaqeyn lahaa waa okay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay Al-Arabiya waxay leedahay magaalada Brussels ee caasimada wadanka Belgium ayaa waxa kulan ku yeeshay midowga Yurub maanta Khamiisa iyo Ukraine waxaana ay ka wada hadleen arrin ku saabsan taageerada cusub ee midowga Yurub ay ku siinayaan Ukraine marxaladda dagaalka ay ku jirto dhanka kale madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay dalkiisu inaanu ka tanaasuli doonin taaka kamida dhulkooda oo aysan Ruushka uga tanaasuli doonin Zelensky waxa uu dhanka kala sheegay inay tahay arrinkaas mid aan la aqbali karin wajida marka Yurub iyo Zelensky iyo isla socdaan Mareykanka marka kaligiisa marka wuxuu rabaa inuu Putin kala macaamilo dhulkan qayb iska qaado qayb iska baxninka Trump waa nin iska wareersan marka Ukraine way cadaysay mowqifkeedu waxa leedahay taaka kamida dhulkeena ma ogolaaneen haddaba xoog waa lagu haysan karaa laakiin inaan saxiixno dhulkeena qaata weligeed ma dhacaysa yiraahdeen haddaba marka sheekadu halkaas ay maraysaa wixii warar cusub oo soo kordhana barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa akhyaaray barnaamijkayga galabnimo waa naga inta like gareeya oo share gareeya haddii aad nagala socoto Facebook-gana follow gareey inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo